wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo reer miyiga oo ay wehelinayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo mas'uuliyiinta waaxyaha kala duwan ee wasaaraddaas ayaa si diiran loogu soo dhoweeyay degmada Gumbraha ee gobolkaasi odayaasha deegaankaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay wasiirka iyo wafdigiisa kadib soo dhoweynta wasiirka waxa uu ka hadlay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay waxa oo ka dhacday degmadaas waxaanu carabka ku adkeeyay in wasaaraddu ay ka fulin doonto mashaariic horumarineed oo cusub oo la xiriira xanaanada xoolaha iyo adeegyada bulshada ee reer miyiga wasiirku waxa uu sidoo kale sheegay in la dardargelin doono talaalka xoolaha iyo kaabayaasha caafimaadka xoolaha ee gobolka waqtiga urida la qoray aniga inta wixii ka dambeysay wax imkaaniyaada ama wax laga qabtay ma jirto waa markii koowaad maga 14 sanadood xukuumadii madaxweyne Muuse Biixi Tirnaysiin madaxweyne Siiraan iyo Allah naxariiste waa markii koowaad wasiir heer qaran noo yimaado aad baan kaga mahadnaqayn adiga wasiir ku-xigeenkaagaba si qiimaha leh sharafta leh adiga agaasimo madaxyadaba aad noo timaadeen safarkaaga koowaad gobolka ku timaadana aad degmadii Gumbraha ku soo horeysay midna wada gobolka ee xanaanada xoolaha ku metelaya taasina waxa ku tilmaamaysaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Ciro gobolka wuxuu u doortay safarkiisii koowaad iyo waxqabadkiisii koowaadba wuxuu u doortay in dadka reer gobolka ay yihiin dad goba inay yihiin dad soo dhaweyn mudan in dad ay yihiin runtii xukuumaddan hadda joogana aad runtii u garab taagan Umar Shacaybna wuxuu ku tilmaamay yahay sumadda madaxweynaha kale eeriyada imanka inaga soo ka xanaanada gobol furiya waxaanu ku ballan qaadaynaa inaad ka dhigi doonto siiladii xoolaha ee geeska Afrika iyo noqon doonta in meesha qoriyaha berbera si toos ah ugu tagi karaan marinka berbera balugoodeena nooga dhigto markii ay ugu soo galayeen bankaas waxaanu ballan qaadaynaa inaan qof sheega kara jirin imanka ma taaqsinta ilaa waqooyi ilaa akula kaftan waxa aqbal waasmaada ya kaftan aku dirsanayna inaad maanta oo aad timi gobolkii oo adiga wasiir ku-xigeenkaagii baad wada socotaan inaad meel u astayso xoolaha lagu daaweeyo oo tayadooda lagu eego oo xilliga ay gobolka ka soo baxayaan caafimaadkooda lagu eego oo runtii aan u arko inay degmada Gumbraha tahay oo meel ka qiimo badan aanay jirin baan u arkaa degmooyinka gobolka dalkeena Soomaaliland wafti ka socdo heerkaas oo teatrka la hoo yimaada maanaan arag oo waxa nagu cusub baan markaa waxa aad u danaynaa sumbaan aanu qaadanay aad iyo aad baan wasiir ku soo dhaweynaa talabaad mudana wasiir waad arkaysaa meeshaas siday tahay sida uu Rashiid sheegay waagi cindallahi ka bariyay inta yar baan isku haysanaa meelihii xoolaha inagu waxay tahay dhaqaalaheenu wuxuu ku xidhay dirista xoolaha nool baynu ku xidhanna dhammaanteen ama magaalo aynu joogno ama miyi aynu joogno maadaama aynu ku xidhannahay waxa weeye xoolihii noolaa inaanu tayayno oo xoojinno oo waxqabadkooda iyo caafimaadkoodaba aanu si fiican uga shaqayno istaraatiijiya runtii halgan inay noqoto hab xoolaha lagu ururiyo silada oo ay noqoto maxay tahay idinka ilaahay xooleennu markay ka yimaadaan halka doonana ka yimaadaan inay transit ku socdaan oo ay deedna berbera toos u tagaan culays fara badan bay ku tahay meel lagu soo hakiyo baahan tahay ceelashiin looga qodaa way baahan tahay waxay u baahan tahay in loo beero calafka in la siiyo innaga waxa weeyaan xooleennu nin kasta oo jooga xooluhu waxay neefka xoolihii waa waxa dhaqaalihiinu ay ku xidhanayeen ku noolnahay ninkaan xoolaha lahayna si kale buu gaadhaa neefka waxa laga helaa ninka kale xoolaha lehna hadalkiisa badaa adduunyadana waxa weeyaan imika waxa loo soo jeestay lagu tartamayo xoolaha marka annagu waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu noo xil saaray waxa weeyaan waa neefka xoolaha ah sidii loo ilaalin lahaa loo daryeeli lahaa dawadiisa loo samayn lahaa calafkiisa loo beeri lahaa ummad isku tirsan oo maartay dee wax qabanaysan ay noqon lahayd idinka warwari maayo idinku ina maartay dad ilbaxatihiin oo dee garanaya in meelaha maartay danta guud la ilaaliyo intaasi kadib wasiirku waxa uu booqday xarunta xanaanada xoolaha ee degmada Gumbraha halkaasi oo kulamo
hawleeda tallaalka ah kula yeeshay kooxdii tallaalayaasha xoolaha ee joogay goobtaasi. safarka wasiirka ayaa halkaasi ka sii socday waxaanu gaaray xarunta gobolka Hawd ee Balugubadle. halkaasina waxa uu kulan kula qaatay barasaabka gobolka Hawd Maxamuud Xasan Saleebaan Doob iyo mas'uuliyiin kale. wasiirku waxa uu sidoo kale kormeer ku tagay xarunta xanaanada xoolaha ee gobolka Hawd. intii uu kormeerkaasi ku guda jiray warbixin qoto dheer siiyay isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolkaasi Hawd Cabdiraxmaan Faysal Ismaaciil waxaana ka mid ah hadaladiisii. mudane wasiir iyo wasiir ku xigeen hal team oo waxa jira wasaaradda xanaanada xoolaha uga hawlgala gobolka Hawd. halka team runtii waxay ka fargareeyaan iyagoo culays kasta ku dhacaan waxay ka fargareeyaan oo ay soo wada maraan dhammaan tuulooyinka iyo degmooyinka ay leeyihiin iyagoo xoolo dhaqatada runtii ugu tago goob kasta ay joogaan. tiimkaasi markay ka yimaadaan fiilkooda shaqaa ee dibadda waxay haddana ka hawlgalaan degmooyinka xarun degmooyinka aynu ku leenahay Gumbraha iyo Balugubadle. mudane wasiir intii lagu jiray saddexdii bilood ee u dambeeyay xoolo runtii aad u badan baa gobolku dhakhaatiirtu runtii ay daweeyeen. xoolaha ay daweeyeen waxaa ka mid ah 29,997 neef oo isugu jira ari iyo geel iyo munaasabadaasi waxaa hadallo muhiim ah ka soo jeediyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin xigeenka duqa degmada Balugubadle, xogayaha degmada Balugubadle, barasaabka gobolka iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo reer miyiga, iyaga oo si wada jira uga hadlay muhiimadda ay leedahay horumarinta adeegyada xoolaha iyo taageeridda reer miyiga. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa inay noqoto marinka Balugubadle marinkii xoolaha sayidadii xoolaha inay aqoonsato Gumbraha banka waa loogu ballanqaaday. waa ballanqaadkii madaxweynaha u dhigma oo barbar taagan maadaama laafista uu yahay nolosha bini'aadmiga xoolaha. aad baan ugu mahadnaqaynaa saddexdaa mas-uuliyiin nala joogiyey isduwaan oo ah isduwa active wuu gaadhay heer uu guryaha tago uu yidhaahdo neefbar guryaan ka jiifa waxaasoo qaba kiciy anigoo gurigeyga tego. laba halaad baa xanuunsan ninkii maalka magaalada weyn meel soo wuxuu gaadmahay maamada u horeysa aroorta dawada uga qaad aniga ah sheega qofka wuxuu qabtaa oo sheega ama keen kala hadlay ma hor soo gaadna mud qof wuxuu shaqeynayna been la shaqeeyo inaad maanta ka bilowday adigoo dhammaanagaasi waaxidadii iyo wasiir ku-xigeenkaagii agaasimihii guud mooyaane wasaaraddaada cid maqribaan jir inaad balgooda noqoto. taasina waxay noo muujinaysaa inaad doonaysa agaasimo kastaaba inuu qorto oo diyaariyo wixii looga baahan yahay balgooda. jawaabna ka soo bixsan insha Allah. waynu ognahay imkaaniyaadkeena guud way isla ognahay, miisaaniyaddeena dalka way isla ognahay, caawimooyinka iyo waxaasoo dhan waxaan ka wada beegsanahay oo salli baan ku wada fadhinaa. laakiin dee waa sida loo kala dadaal bataa. nin waliba dadaalka intii uu dadkiisa gasho ayuunbu ka maalaya. adiguna waxay tahay wasaaradda lafdhabarta u ah dalkan jamhuuriyadda Somaliland. xoolaha nool baynu ku tiirsannahay. xoolaha nool baa inoo maxay tahay resource-keena ugu badan iyo wax soo saarkeena waa xoolaha nool. maanta inaad xoolihii noolaa aad awoodda saarto in loo helo caafimaad, in loo helo goobo ay daaqaan. waad soo martay xarunta Gumbraha banka weyna ku yaala. aniguna waan kaaga waranay in cagafta gobolka hortiisa taagan ay u diyaarsan tahay inay banayso meelaha loo watay sida sharciyada lagu watay. loomarinaya codsigayga Cabdiraxmaan midiyaan ka sheegaya Cabdiraxmaan waa nin active waa nin shaqayn kara waa nin meel kasta sida ay sheegaan tegi kara. sababtoo maalin baan telefoon ku dhuftay waxaan ku raacay xagga joogta Hargeysa joogaa. dameer baa halkan isku wareegaystay xanuunsanayo dadkeedina saldhigan ku xaray. Cabdiraxmaan Allah wuxuu yiri labayna baan ku soo diray waan يعني حنون كهايا باريس بانوسين إن شاء الله ودلالة يعني هدو دق على هستنا ساعد والبمجال تجلها ساعد والبمجال حوالك صوت على دوين كسروا قادمها مركا كاريك الكيسي وتا والشقية إن شاء الله أيضا صوصين تنتقل agaasimeyaasha halkan jooga agaasimeyaasha
dhaqaajiya wasaaradda xanaanada xoolaha. wasaaradda xanaanada xoolaha intii aan joognayna waa team isku duuban baan nahay. haday tahay wasiirkeeda, wasiir xigeenkeeda, iyo haday tahay agaasimaheeda guud iyo agaasimo waaxidadeedaba. waxaan ugu talagalnay maadaama ay tahay wasaaradda xanaanada xooluhu wasaarad ballaaran afdhabartii dhaqaale waddankeennana ay tahay inaan xoogga saarno oo aanu ka midho dhalinno ayaamaha aanu joogno haddii la yidhaahdo. san horebana u sheegay qof walibana aniga iyo adiguba wixii aynu ka tagnaynu halkan kaga tagno ayuunbay naga hadhaysa taariikh. waddankeennu taariikh buu leeyahay fac weyn. waxaa lagu yaqaano waa xoolaha. shidaal laguma yaqaano, beera laguma yaqaano, waa waddanka xoolaha loo yaqaano. barbaraawi neefkeennu taariikh buu leeyahay. waa emblemkeena iyo calaamadeennu waxa weeyaan neefka xoolaha ah. afdhabarteenni dhaqaalaha ku xidhan. maadaama caynkaa tahay waxay nala gudboon waxa weeyaan inaynu ka midho dhalinno, neefka xoolaha u adeegno, xanaanintiisii iyo daryeelkiisii iyo daaqiisiiba ilaalino. maanta dhammaanteen reer miyi baynu kasoo wada jeednaa. dad xoola dhaqataa baynu ahaan jirnay. xooluhu ay haybadii lahaayeen waa garanaysaa. xoolaha iyaga la isku casuumi jiray. iyaga reerkaan xoola lahayn dee mu lahayn, naf mu lahayn. ninka magaalada jooga laguma xisaabtami jirin. nin caydha buu ahaayeen waxba haysan. dadka qani waxay ku ahaayeen xoolaha. iminkana waan idiin sheegayaa adduunyadii bay nooga horeysa xoolihii dhaqanaysa. iminka waa la isweydaarinaya. innagana xoolihii baynu ka teginaayo magaalooyinka baynu gelaynaa. waxaan doonaynaa inaan haybadii xoolo lahay soo celinno. xoolihii la dhaqo habkii loo dhaqi jiray maanta xoolihii guurguuri jiray oo kale mari jiray way soo yaraanayaan ma jirto. dhulkeenni way naga oodanayna dee nin walba inta meel xidhay doonayeen xoola ku noolaadaan. waxaan u baahannahay xoolaha habkii loo dhaqi jirayna inaynu wax ka bedelno hab casri oo qiimo leh inaynu xoolaha u dhaqno. baahiyaha uu isuduwu halan ka sheegay waa baahiya uu markii hore noo soo gudbiyey riboodkooda. iminkana aanu ognahay waxyaalaha ugu horeeyaan ballan qaadi doonana waxaa ka mid ah gaadhiga ugu horeeya inaan u keenno gobolkan hawd oo gaadhsiin doono insha allah meelaha ay u baahan yihiin oo dhan. marka ugu horeysa aan maaragtay dee qorshaha aan ugu dari doono haddii la